dhammaantiin waa idin salaamaya bacdi salaam waxaan filayaa labadii maalmood oo mashruuca program yar noogu socday jira halkan shalayna koox kale ahayd maantana waxaan filayaa waa kooxdii labaad waxaa ogtiin Soomaaliya inta badan waxaa jira universal periodic review iyo sidii Soomaaliya tala bixinadii loo sameeyay oo 276 ahaa dib u eegista markay ku sameysay Soomaaliyana ay qaadatay 246 qodob inay wax ka qabato ayaa tababarkan inta badan ku saabsanay sidii loo dardargelin lahaa sidii 246 qodob Soomaaliya ay ballan qaaday inay wax ka qabanaysa loo dardargeliyo wax loo qabto marka maadaama dawladda iyo hay'adaha dawliga ay yihiin laba garab oo is dhamaystira looguna shaqeynayo barnaamijyada la xiriira arrimahan xuquuqul aadanaha iyo dhibaatooyinkaas si looga hortagi lahaa haddii ay tahay in sharciyo la yagleelo oo wax looga qabanaya tacdiyada la xiriira xuquuqul aadanaha sare looga qaadayo ama lagu yareynayo sifada dambiilayaalkii iyo dadka dhibaatooyinka sameeya aanay gabaad u helin tan kale Soomaaliya waxaa jira sharciyo fara badan oo ay saxiixday sharciyadii kadibna la ansixiyay marka sharciyadaas iyo inaad la dabaqo lagu dhaqmo iyo sidii xuquuqul aadanaha loo ilaaliyo iyo hanaankii la rabo levelka in laga gaaray waxyaabahaas oo dhan ay inta badan xoog lagu saaray marka maadaama universal periodic review-gan uu yahay reports ama hordhacyo oo la gudbiyay 2 sano mar la gudbiyay kadibna 4 sano dib u eegis lagu sameeyay waxa marka muhiim ah maadaama inaga aan nahay dal kabanaya ama colaad kasoo kabanaya markasta inaan barnaamijyada noocaas aan si wada jir looga shaqeeyo ka qaran ahaan waxa laga yaabaa markii binding la leeyahay oo howlahan la qabanaya waxa laga yaabaa inay wasaaradaha heer federaal ay report u gudbiyaan oo ay halkaas ka baxaan laakiin in wixii ballanqaad oo Soomaaliya ay soo sameysay dhamaanteen waxay noqonaysaa wax mas'uuliyad wadareed ah oo dalka dhan ka dhaxeeya lana doonayo in laga soo dhalaalo dhamaanteen waxay noo saameynaysaa dawladda marka labadii maalmood qorshihii iyo tababarkii qorshaha sida loogu degi lahaa iyo loo horumarin lahaa hawlahaas waxaan filayaa maanta ayuu ku egyahay oo idinka oo kooxdii labaad marka waxaan filayaa in khibraddiinii iyo wada tashigii halkan lagu hayay uu ahaa mid miro leh dhamaanteena aan si wanaagsan ugu faa'iideysanay ana kala faa'iideysanay marka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo idinka mahadceliyo tababarkan macquul gal ma noqon lahayn haddii idinka soo qayb galay marka waxay ahaydeen very important stakeholders oo barnaamijkan saamilay xoogan ayaad ku ahaadeen waana idinka mahadcelinaynaa barnaamijkeenina waxaan filayaa si rasmi ah ugu noo xiran yahay insha Allah taala wa mahadsantahay